wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ka daafuray tababar loo sameeyay qayb ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta kaasi oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Ugu horreyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa agaasimaha waaxda shaqaalaha runtii maanta halkan loogu diyaariyay iyo macallimiinta agaasimayaasha warbaahinta dawladda agaasimayaasha wasaaradda maanta halkan waxaan ka furnay tababar oo shaqada dhexdeeda lagu wadayo ama job training lagu dhaho afka Ingiriiska waan ugu talagalnay shaqaalaha ka shaqeeya editingka ama diyaarinta barnaamijyada markii la soo qabto inay muddo bil ah halkan ku qaataan tababar subax kasta hal saac intaan shaqada la gelin ka hor 7 subaxnimo ilaa 8 la geli doono insha Allah tacaala macallimiin u diyaarsan oo runtii ay bari doonaan agaasimayaasha iyo shaqaalaha runtii waxaan ku ammaanayaa diyaarsanaanta shaqada waxaan rajaynayaa in shaqaalaha la tababarayo tababarka shaqada lagu tababaraya ay ka faa'iideysan doonaan fursadda. Maxamed Cabdi Jalaqsana wararka TV-ga CW degmada Cabudwaaq.